السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هو درس له وأنا كم قاعد عبد الساق عبدي تنا واشياء كذا qof walba caruurnimo soo maray qof walbana wuxuu soo bartay waxaan ku dhashay oo ku barbaaray jijiga jijiga waa meesha ay waalidkayga oo dhan degan yihiin ilaahay daayay hooyaday aabahay iyo dhammaan kuwii la dhasho dhan xaggaas bay degan yihiin iskoolka gaaray ilaa 11 dadka jijiga jooga ayaa fahmay 11 sano wana hal sano ayaa iga dhinayd jaamacadda marka laga yaabaa inaad idinka istiraad dirisla jaamici baan moodinay may jaamici meeyano jaamacad uligii ma dhigan marka wixii ugu dambeeyay bartay wuxuu ahaa 11 mana classka 11 mana hal sano ayaa iga dhinayd jaamacadda markaan u soo laaban dhanka madrasada ama dugsi quraanka qof quraanka dhameeyay laakiin waxaan ahay qof quraanka meel fiican ka gaaray qof sheekh miyo diinta maanta meel walba hadda laga soo galo waan aqaanayo ma laakiin wax waan garanayaa ma sha Allah marka xogaa markaan ciyaalka madrasada ama dugsi quraanka dhigtaan ahaan jirnay dhibaatadu aad bay isaga badnayd mana waxa iska dhici jirtay iyadoo noo diray inaan quraanka tagno inaan kubadska tagno ama dabaal saa u taqaaniin mana jijiga male bad laakiin waxa jiray meel lagu dabaasho marka anagoo noo diray inaan quraan soo barano iyo ahadiis iyo waxyaabo kale ayaa waxaan sameyn jirnay intaan buugaagta iyo waxyaabahaas meel dhigano ama dukaan aan u dhiibano ama meel mana aan dhigano qof wax ku dubay mana sambuusaha iyo canjeerada ama laxooxda ama saa u taqaaniin baba meel aad u dhigan jirnay kadib waxaan sameyn jirnay waxaan tagi jirnay meel lagu baashaalo ama kubada ha noqoto ama dabaal ha noqoto ama buuraha fuuli jirnay buur waxa jirta la yiraahdo qofka jiga joogo ganaa kaarmarda waa buurta mana jiga kala joogo dheer inta la qaato cunto yar biskud iyo wax yaani baa la fuuli jiray waxa laga soo dhaadhici jiray xilliga madrasada la soo daayo marka waxa jiri jiray macallin ilaahu naxariistay hadda uu geeriyooday waxa jiri jiray macallin una jeclaa diinta baranuu rabay kulli laakiin halka dib uu sameyn jiray waxay ahayd garaacitaanka manaha marka qaar kood baan is oran jirnay isuu noo garaacay malaha hooyada aabaa in meesha lagu dilo miidkaaga la qaadan bay rabaan mana wuxuu sameyn jiray tuumbada taqaaniin weeyane tuumbada wuxuu dhigi jiray banaanka mana dhaxantu u dhigi jiray si ay u adkaato oo qofka marka uu ku garaacayo ay ugu sawirmato oo wixii aad shalay samaysay adan maalin dib ku calin imka halkan in aragtimo labada meel bay iga taalaa meel jeexan baa jirta in aragsin mooyaane waxaas meel kale kama yimaado dad Ismaaciil leyn dad maan isqabsan waxay ahayd madrasada dhexdeeda anagoo dugsi quraan ku jirnaa ayaa waxa dhacday cabsi laga baqayo macalinka qalin ayuu wiil baa qoranay maana inaad xasuustimo qalin qori baa jira uu qoranay macalinku markaa uu maqnaa soo qoran la sheekeysanayo oo meeshu buuq tahay oo anaguna fadhino midna dul taagan yahay qoranaya ayaa waxa dhacday macalinkii baa soo galay baa la dhahay moogtahay maana waa la sheegay alla macalinka soo galay hal aamus hal kala fadhiisto asxaabtii banaanka joogtay soo gashay qolkii aan wax ku dhiganayni ninkii aniga dul taagnaay maana sakiinta qalin ku qori la soo tuuray isaguna muxuu sameeyay gacmihii iyo qalinkii wuxuu dhan iska soo horeysay aniga maxaan dhulkaan fadhiyaa moogtahay waxa alla diriso iska ilaali waan eegay marka waxaan la iska ilaalinay waa maxay ninkii sakiintii wataa ay soo galay marka xaggan waxay ka timiday wala wajiga inuu xagga jeexno waxay ka timiday dugsi quraankii aan dhigan jirnay ninkii xaggan jarana wali uu nool yahay magaalada jooga maalin dhaweyd 2019 mar aan joogay baa loo arkay marka ugu wali ma xasuustaa baa ku dhaanay sababtoo meeshan waa meel mar walba aad iska arkaysa ama video dub ama muraad hor istaag ama qof ka soo eego meesha ugu horeyso arkay waa halkan faanteen marka adu dad dib badan ma ahayn laakiin waxyaabo badan way nagu soo dhaceen asxaab wala iska dhibaato badan oo iyaguna waxay rabaan iska sameyn jiray oo xogaa in nageer waaweyn anu waxaan dadka mar walba waxaan ahaa dadka
dadka iyarkeer waaweyn man asxaabta la ahaa manaa maan ahayn dadka iyagu waaweyn ee dadka yaryar asxaabta la maan ahaan jirin waxaan asxaab la ahaa dadka aan xogaygeer waaweyn marka kuwaas aad qalqaal u ahaa kuwaas un baa ama liigu dabadili jiray ama waxay sameeyeen liigu qabsan jiray aanu qalqaaligi maayna laakiin waa la qalqaaliyin jiray maana dad baa sabab u ahaa inaan meelaha qaar galo aanan rabin inaan galo ma faateen marka adu caruurnimadii nolosha aan iska soo marnay waxa iska ahayd nolol aad u faniya haddii maana la weydiiyo maanta lagu dhaado markaad caruurta ahayd ama markaad dhalinyarta iska ahaato markaan 13 jirka 14 jirka ahaa iska ahaato haddii lagu dhaado xilligaa maad islahayd cabirsaaqow dirisla lagu odhan doonaa oo Soomaalida magac baad ka yeelan doontaa oo fiidiyoogan baad duubi doontaa ma isla hadda la weydiiyo waa maya ismaan anigu waxaas macnaha ma ahayn macnaha waxa jirtay markaan aan ka noqday in dadkii aniga hore ii yaqaan ila yaaban ilaa ninkan nin hal jiray munaayo iska aamusnaan jiray niyo sidii aqal ku noqotay ninka inuu dirisla noqdo ninka uu hadal badayayo marka waxa iska ahaan jiray waagii hore qof iska afgaaban xanaaqaygu wuxuu ma imika yar fiicnaaday waagaas aad baan u yar xumaa dhanka xanaaqay waxa manaha dadka aad ka looga kaftamiyo waxa ma jirin oo marka wax la isdhaw dadka xanaaqaan aan jiray imika laakiin waan iska yar fiicnaado maskaxa waa ku dal laakiin xilliga waxaan dadka aad u xanaaq laakiin aamusan dadka iska aamusay la oran jiray ninkan muxuu horta la aaminsan yahay jiray moogtahay marka dadka qaar markay arkeen marka aan ka noqday social media arkeen waa ma ninkii baa saan u hadlay ninkan ma hadli jiray balaa ka hadashiisa la oran jiray ma fahamsan marka markan jiga joogay maskaxdayda ma soo gali jirin social media galaysaa waxaas shaqadeeda ma ahaan jirin qof walba shaqooleeyo soma waxaas shaqadeeda ma ahaan jirin takalla laga yaabaa inay istiraadin abdusaaqo de waxaad baran jirtay maxaad jeclaan jirtay oo islahayd waa noqon doontaa qof walba wax uu jecel yahay qaar baa inay dhakhtar noqdaan jecel qaar baa injineer noqday oo asxaab ahaan jirnayba qaar baa dhakhtar macallin noqday way jiraan qaar baa macallimiin noqday qaar baa imika idaacadda u shaqeeya ani hadda cabirsaaq inta la soo istaagay uu cabirsaaqo waaga maxaad islahayd noqo wallahi ma ahayn ba aan dadka wax barashada aaminsan ma garanayo idin sheego manaa meeshaan iska joogno iska Afrika waxaad arkaysaa qof isaga oo intaasoo maxaa la yiraahdaa shahaadooyin haysta haddana qaadanaya $200 noloshaas aska marka aan mar walba hamigaygu ka yara sareeyay hamiga ah dawlad u shaqeeyo maxay noqoyo waxa hamigu ka yara sareeyay laakiin maanan lahayn hami ah waxaas noqo macnaha waxaas noqonaysaa dadka yiraahdo ee waxaas noqora waxaas jeceshay ma ahan jirin fahanti laakiin waxaan is oran jiray wiliga ah uu noqon qof shaqaale dawladda ka shaqeeynin waxaan xafiisyada la tagay waxa shaqadeeda meenahayn macnaha haddan macaladan wax walba waay dadka ma noqonay ganacsan iska noqon anigu waxaan iska ahay cabirsaaq ahaan dadka iska jecel ganacsiga iska yara barakaysan iska ducaysan fahanti halkaasaan u badan doona lacala haday waxyaabaha aan wado hadday shaqeyn wayaan laakiin laga ma yaabo inaan macnaha noqdo qof xafiis iyo waxyaabaha fadhiistano shaqadeeda waxaas ma sababtoo ah kuma fiicni waan garanaya ma fahanteen marka maan ahaan jirin qof taarget leh oo ah oo oranaya macnaha waxaasaan rabaa inaan noqdo xilliga aan macnaha jaamacadii waxa galo laakiin midaan ogaaya jirtay oo ah inaan hard working person ahay oo macnaha hadii aan wax ku dhaqaaqo waxa ka soo baxayo macal hadal waxa jira aan aabaha ka qoro meel iyo waxa ri qoro mar walba xasuusto ah macnaha marka lagu kari waayo ani tayga yar baa iga fiicnid waxbarashadii waxa macnaha gabadhaani la dhalatay ayaa iga fiicnayd marka waxbarasho la yiraahdo anu waxaan dadka intay ka soo baxaan iskoolka ama meelaha buugaagta meeshii ay maanta dhigeen bari ugu imaanay ka sii qaadanay haddana iskoolka sii tagay marka aabay baa la yar weydiiyay ninkan mustaqbalkiisa maxaa u malaynaysaa ma fahamsaa marka hadal aan ilaa hadda ilaahay baa jiro oo ah ninka soo doonaha ha u dhaqmanaha laakiin ninka aad isleeyahay xaafadayda ahaan ugu aqliga badan yahay waa ninkan erigaas aabay maalinta uu dhahay wiil iska dhalinyaro ahaa imika dhalinyaro laakiin ciyaalaas ka ah ma fahanti macnaha qof iska orday mustaqbali waxa waxba ka gelin maska ah hadalkii ilaa hadda waan wataa macnaha ilaa hadda waxaan aaminsanahay xaafadayda marka la qofku ugu aqliga badan aniga wuxuu aabayga dhaadhicay macnaha wuxuu aabayay sheegay wuxuu baa ka jira waqti marka mar walba waxaan aaminsanaa anoo hadalka aabay qaadanaya in aan noqon doono qof meel un ka soo baxa meesha doonta ahaatee imkan dawaniga Soomaalida hor fadhiya waniga hadii dadka aan kala dadka maskaxdooda diris ku soo dhacayo
dadka qaar baa u maleeya magaca Drizzly inuu yahay magaca YouTube-ka iskaga qorto iska qarxo iska yiraan Drizzly magacaas magac saas ahaa maaha magac aan macnaha markii aan noqday ama aan rabina aan noqdo aan bixistay maaha magacaas weli horta markaan jijiga tago waa la isku qabsadaa qofkii bixiyay oo dadka qaar baa yiraahdaan in anaga bixinaa weli meelaha naga ma sheegto wara ani qofkii bixiyay anu ahaa qaar yiraahdaan jira moogtahay qofkii ii bixiyay Drizzly weli ma garanay qofku yahay waa la isku yar haystaa weli oo macnaha anoo ku bada ciyaarayna buu qof afkiisa ka soo baxo sidii bii igu dhigay laakiinse qofkaas waxa weli ma oran karo dhalinyarada iska banday afar qof isku haysto oo magacaas ana bixiyay leh laakiin magacaas aad u muhiimada waxa weeyaan in uu ahaa magac baxay ka hor caanimada macnaha markaan jee ka soo baxay anuu qurbahay waxa tagin baba magacaas magac baxsan buu ahaa haddii aad yaabantoos leedahay Drizzly waxaana Idris ma aha Drizzly aan waxa uu ka yimidina Drizzly sidaan macnaha markaan dib u eegno wuxuu ka yimaaday Cabdirasaaq maadaama Cabdirasaaq leedo magaca Cabdirasaaq haddaad xagga ku qortay imika oo lagu soo qori doonaa Cabdirasaaq haddaad qortid Drizzly qortid Cabdirasaaq soma Drizzly LE baa lagu daray marka xaggaas uu ka dhex imaanaya oo erka doonta ma maleynaa marka tusaalahaan imika dhalinyarada la eego waxaa jira dad lees yiraahdo niyo dadka fudfudiin laga yaabaa in ay magaal ka baxaan ay taariibaan iyo dad lees leeyahay warkan iyo ma maleyn inuu taariibayo macnaha lagu tashanin aan dadkaasana lagu tashanin dadka lagu tashanayo oo la islaha ninkan jijuu ka bixiyo meelahaas uu tagiyo macnaha waa nin baxayaba maan ahayn lagu tashan jirin macnaha waxa jirtay dhalinyaro intay baxaan la soo calin jiro xaafada la oran jiray war maxaa ku haya ma gaajoonaysa ma gurula aaba ku haysa maxaa la taariibisa dad marka aan asxaab ahayn ama noo dhawaa oo jaarka ah oo arinta lagu qabsan jiray jirto oo macnaha la oran jiray maxaa la taariibisa marka la soo calin macnaha dhisaba laga soo calin jiray ama waxa laga soo calin jiray Suudaan ama Liibiya laga soo calin jiray adii meesha dadba noqotay marka la soo caliyo waan maqli jirin macnaha iyagoo la haysto leeyahay maxaa ku taariibinaya ma meel wax ka cuntaad weyd waa maya ma dhar baa lagu waayay waa maya ma meel seexataad weyd waa maya maxaa ku tahriibinaya marka dadkaasi ahaayeen dadka looga baqi jiray inay baxaan laakiin anaga meenayn ani iyo mid kale oo asxaabnahay oo magaciisa ribna xaga sheego mana la isma oran jirin dadku way baxayaan marka waxa dhacday adi anaga oo meel iska fadhina xaafadada agteeda ay ku soo dhacday wiilkan asxaabtanahay in aan magaalan ka baxno maadaama waxba oolin maskaxdeedan ka dhaadhicin ma fahanti imika hadda lagu leeyahay Drizzly ani imika African jooga moogta xilliga hadda lagu leeyahay waxa aad ka sheekeynayeen imika seed u aragtaa waxaan aaminsan inaan qaldayn macnaha waxaan aaminaba jijiga in waxba dhex oolin oo ay qasabtay inaan ka baxno xilligaas maanta Drizzly hadda la weydiiyo jijiga ama Africa inaad ka baxday marabtaan miiban koronaya so xaga maxaa kaaga cad fikradda aan ka haystay xilliga iyo fikradda aan hadda haystay kala duwan tahay taasna waa aqliga macnaha waa la koray ma fahamsan marka ideas ayuu keenay wiilkaas idea wiil kale ku sii darsanay wiilkii kale waxa dhacday daba in lacag la isweydiiyo maadaama macnaha meesha la baxayo oo loo baahan yahay gaar la sii raaco oo Disaba la sii tago Disaba laga baxo ana meelaha waa in qofku wax haysta uu cuno abo jacket iyo wax ku iibsado macnaha jacket la xidho dhaxama laga xiranayo ama ku roobku doo kale iyo wuxuu gaariga ku raaci lahaa marka waxa dhacday in ay qasab noqoto in lacag soo hadmo qof walba xaafadooda tagay ana xaafadoodan galay meel wax ku ogaan jiro anu maxaan iska ahaa dadka la iska aamino macnaha waxaan ahaa hadii hooyadii xagga lacag u taalo dadka aan la oran jiray Cabdirasaaq baa qaadanay waxa marka waxyaabo badan iska ogaa lacaga meel taalay toosan u abaaray lacagtii baan qaatay lacagtii baan macnaha dadkii ula yimaadeen tan intan haysanaa kadibna qofkii kale isaguna wuxuu haystay ugu darsaday macnaha hooyadii aad waxaad tiri maxaa ku tahriibsi waxaad rabtid baa lagu sameyn karay waxaad rabtid baa heli karaysay waxa tahriibka ku macnaha adu way la yaabtay deeriye badan ay tiri oo hadda soo xasan karin laakiin kumina faraxsan aabahayna wuxuu la yaabay inta tahriibkii waxa laga bixin ma Cabdirasaaq baa tahriibo ismuuna leegama filanayeen baba nin laga filanaya hawsha ma baan ahayn baba marka waxa dhacday in telefoonada dal iska qaado qof walba ma la hadash bas
laga qaado waxa bilaabay dabay gumeysi baa bilaabmay hadda xaga ma kala joogo waxa bilaabmay in telefoon ninka ku hadlaysid lagu xisaabiyo waxa bilaabmay in saf gala iyo waxyaabo la iska ilaawana waxa bilaabmay in la isciriiri oo dhibaatooyinka ay yimaadaan bilaabmay kadibna Liibiyaan galnay markaan saa Liibiya u galnayna waxa bilaabmay xilligii la kala iibsanay dadka sida xoolo oo kale la kala iibsanay dadka mana nin xashi maxay la iska ilaaliyay askay manay oo Liibiyana mid iska khadaari mid askay manay oo doon ilaaliyay mid nin kaas ka imaanay sida Allah kala kala iibsanay dadka looreeyay aniga waxaan rabaa 40 qof qofkan maxay buu rabaa qof walba gaarigiisa Cabdibilow wata Cabdibilow garin soo ma leeyahay waxa la yiraahdaa gaariyaashan xajida oo eego kale mana xagga dambe banaan qof walba intuu rabo gaariga loo saaraa saddex Cabdibilow anaga lagu qaaday mid ana dhahayana raba aduu wuxuu qaatay 80 qof oo maalina saddex gaari lagu kala qaaday waxa dhacday in meesh saxara bartanka lagu dhex dejiyo meel mana uu qadaafi ka beeraa jirta timir saxara dhexdeeda qadaafi dad in lacag ay soo moogtahay mana saxara dhexdeeda wuxuu ka dhex beeraa timir waxyaabaha aan possible ahayn ku dhex sameeyay wuxuu sameeyay meel biyo laga dhaansado waxyaabo badan uu sameeyay dukaanada jiray laakiin waa saxaraha bartankiisa iyo hadda istiraad luge oo meel kale u baxso ada istiride mana isku talagalina dhimatid laakiin wali dad way ku nool yihiin oo dadkaasi waxay wataan Cabdibilayaal oo waa dad wajigana xiranayo oo magaalada inta ka soo baxaan vacation meel ay imanayo dad kala iibsanayba marka meeshaas lagu daadiyay meeshaas la dhaay ki jawaan tolanaya tasho ki dharkiisa wuxuu ku saxda ka dhiganaya ka dhigto ki raba inuu xalada lacagta soo dirsado xagaas marka nalageeyo meel timir leh biyo leh waxyaabahaas lahayd waxa la arkay Soomaalidii waxba soo dirsanayeen lacag soo dirsado ninkan aruutu noo imaana hayba la oranaa telefoonada dadka waa la hadla waxba lama soo dirsanayeen lacag lama soo dirsanayo sababtan waxa keenaysay waxa dhirgaan mana waxa jirta timir caadi ah soo guranay biyo la helay dharka la meerinay gurguruda dabado qofa la isku raaciyo cunta la karsanay mana waxa la karsanaa cunta caadi ma laakiin macaroni ama pasta ama bariis cadaan iyo wax saas oo kale iska moogta ninkii wuxuu dareemay marka loo eego dadka tahriibay in anaga raaxaysanayno meel qaldan keenu dareemay wuxuu yiri labada cisho soo socota qofkii lacag soo dirsan waaya waa laga kaxanayaa meeshan waxa la geenayaa meel aad aragteen oo wax laga soo duubay dadka tahriibay baa joogo oo dadka dhar ku dhinteen injir gashin aragteen mooyaan oo dhibaataysan oo waxaan ku yiri qofka xayawaan inuu eegayo meelinaysid meelahaas jira oo manaa qofka lacagta soo bixin waaya la geeyo soo uu bixiyo halka hal geela dhaay marka 2 days ay sitiin halkaas la idin geena ninku wali uu iska sii fiicnaa labada cishun siiyay qof kale uu soo dirsan waaya ani kaliya baa soo dirsaday ani kaliya bis Cabdirasaaq ahaan kaliya lacagta loo soo diray maxaa la sameeyay marka ninka uu imaaday yaa soo dirsaday ninka kaliyaata wuxuu yiri wixii nin ah oo dhan hal ka hayo gibi buurta la geena meel buura jirta marka waxa haray ninkan iyo gabdhaha kaliyaata ani iyo waxa la reebay wixii gaban meesha joogto dhan waxa la kixiyay dadkii kale oo dhan si ay lacag soo dirsan maadaama ay lacag soo dirsan waayeen oo ay dareemayaan meesha in raaxatay markii dadkii la kixiyay annaguna aan meesha joogno waxa dhacday in labadii cisho hal qof la keeno lacag soo dirsaday saddexdii cisho hal mar hal qof la keena adi markaan noqon 20 qof haddana Soomaalida si gariisa oo malay qabyaalad baa dishay moogtahay waxa loo kala go'ay reer Somaliland reer Jijiga reer Soomaaliya reer maxay reer allo yar kala go'ay waxa bilaabmatay in Soomaalidii markii dhirgeen islaayaan baa bilaabmatay marka kuwi lacagta bixisay kuwi lacagta bixisanayaga waa dhibaataysan yihiin waa dadka maalin walba la soo duubo ila yiraahdo hebel baa dhibaatay ee lagu dul istaagin aragtay mooyaane waa caawi yiraahdo waa dadka marka meeshaas waa meel loo yahay oo la isgeelo yiraahdo qofka laga cabsiyo yiraahdo soo bixin weyn maanta buurta lagu geynaa kadibna waxa dhacday in dhirgaan islaayaan qabiil isku laayaan waxa dhacday in la yiraahdo meeshan la idinka kaxayna 3 bilyan la geynaa mana meel magaalada caadiga la isgeynaa marka adi laba cisho ilaa 4 cisho kadib 40 qof aan noqonay marka waxa la oran jiray lama baxayo ilaa ay 3 gaari ama 2 gaari oo buuxa meesha ka baxayaan waxay rabaan iyagu in gaariyaal badan baxaan ma rabaan in hal gaari safar galo sababtoo ah meesha la soconay waa saxare dhexdeeda wax walba iska dhici kara fahmaysin waa la lumi karaa waxa lagu soo daajib telefoon iyo waxa la helo ma jirto taar baa la isticmaalay fahmaysin telefoonada ay leeyahay waa la wacaya wadankii ma telefoonada halo Samsung iyo waxa ma waa taarashi dhaadheera waxa la isticmaalay GPS la isticmaalay marka gaariyaasha la socdo
markaa afartan noqonay aan baxnay waxaan nagey triple meeshii aan joogi jirnay waxaa dhacday ninkii markaa tii saxaraa lacagtaas waa lacagtii saxaraa lacagtaas la iska qaadayay waxaa timid haddana lacagtii biyaha maxaa la dhahaa badda waa lacag kale iyaduna meeshii ninkii markuu nageeyey nin kaluu naga sii iibiyeyba markaan ku celina sida xoolo kala kala iibsanaya walaha dad kala nin kala naqaatay oo isaguna maxaa la dhahaa liibiyana ninkii wuxuu si kaya haystay hal bil wardoonta nasaar dad baa ururinaya wardoonta nasaar dad baa ururinaya wardoonta nasaar Tunisian daawin habeenkii TV aan noo soo qaaday badda maanta way kacsan tahay ma baxi kartiin waa been waxaas marka waxaa dhacday siduu noo hayay in uu noo diyaariyo askar noo soo dhacda si uu lacagta iskaga qaato uu dadna doon u saarin markaan adu 40 cisho joognay 30kii noo dhamaatay bishii 40 cisho joognay ayaa waxaa dhacday in askaraa soo dhacday Liibiyana waana la qabtay jeelkan la geeyay lacagtiisaas naga qasaartay markaan ku celina lacagtii hore ee saxaraa taas waa mid kale tan waa tii badda markaa way khasaartay waana mar kale jeelka lagu geeyay waana mar kale jeelka laga saaraa hadana mid kale soo dirsataa jeelkii waxay noqotay hadaba maadaama uu la rabo in mar laba lacag laga qaado in ay jeelkii naga dabay maadaama mukhalisiin Liibiyana oo ilaado qofkii lacagta soo dirsan kara waa la soo saaraa soo dirsan kartaa laakiinse Soomaaliya waxa garanaysa ama waxa haysta ama wuxuu inaysan ha wallahi waa la soo qof walba ha yiraahdo waa la soo diraa ha la soo saaro dadkii meel kale hadana la isku geeyo meeshaas waxa dhacaya xasaasiyad injir balaayo dhan oo dad isxoqay waa iska aragtaa qof hurda oo isxoqay habeenkii oo suuranaysid dad baa iska dhiijiyay macnaha oo dad jirku eegtay si u xoqayeen arkayoon isagoo wax ka soo daadanay mugtahay marka waxa keenay waxaasna waa uskaga iyo nadaafad darrada iyo meesha oo ay soo mareen dadkii ilaa 1990 taariibi oo nadiif aan ahayn marka dadkii baa iska xanuunsaday qaar baa iska dhintay macnaha si iska xanuunsanay qaar dad yaro waaweyn baa jiro si geeriyooday marka waxa dhacday in la yiraahdo toddobaadka soo socda waa la baxaya doona la helay marka waxa nagu dhici doonta tii ugu xumayd wiligan ka soo kaban doonay ahayd in ay asxaab naga hor baxdo oo doontii naga hor baxday 80% ay ku geeriyoodaan doontii anaga naga horeysay ilaa anaga nasiibka nooga reebay asxaabtaydii nala socoto dhan qaraada rijiga qaraada reeso meel qaraadan meesha Puntland ka soo jeeda meesha doonaadaan 80% ma ku geeriyooda 20 baa galay xaafadii maxay u yaala dhalinyaradii asxaabteeda ahayn geeridoodii baa la fadhiyaa annagana xagee joognaa Liibiya dhaxdeed war Cabdirsaaq waxa bixin ka joog waan bahaya burdadkii idin la socday ee jaarka ahaa bay geeri u taalaa waxaasna waxa keenay waa biyaha la iska galiyay ka jooga intaas oo dhan baan soo taariibinay maxay waa inaan galnaa waxa dhacday in dibta ugu sii weyn waxay ahayd anoo kale maanan garinin dabaal dibaa ka bartay imika waa garanaa laakiin xilligaa aan badweyn aan iska fuulayo doon yar oo la afuufay wax dabaal oo garima jidaan wax dhaco badhaq nin baa jiray baa loo oran Cabdirsaaq loo oran jiray marka waxa dhacday maxaa la yiraahdaa ma habeenkii baan soo baxnay habeenkii doonta la saaray habeenkii baan soo baxnay u soconay waxa bilaabmatay shidaalkii aan wadanay ku dhex daatay maxaa la yiraahdaa doontii yareedee bacday dhexdeeda waxaa dhacday dadkii inay cunaan shidaalkii iyo biyi milixda lahaaba is dhex galay qofka lugihiisa uu dhex fadhiyaa meesha waxaa bilowday inay dadkii cunaan oo doontii dhexdeeda la kala durko doonta waxa lagu talagalay in aan saal aad loo dhaqaaqin oo ay socoto waxaa bilaabmatay in la is cuno qofkii inuu cuno qofka kala dhaqaaqo waxaa bilaabmatay in la kala cabsado waxaa bilaabmatay in doonta dhexdeeda la isku dhex dhirba waxa la yiraahdo idinkaana dilaya ay naagi yiraahdaan alla dhimanay intay ragganis aad keenayaan bad waxan ay gabdhiis ka wada ooyaan dad kanaabna dilay baa anaga hadduu shidaalku idin gubay maskayra joogtiin wad arkaysid dad ana diirka kore ka dul qaadmayo biyo milix la shidaalkii intuu isku darsamay lana sii soconaya dhowr iyo 20 saacadood oo isku cunaya dadka qaar baa dabaashi yaqaano intay
gacanta xarig ku qabsadaan ay dabaal yara dabaalinayeen in yar kadib haddana way soo fuulayeen annagu laakiin waxaa shaqadeeda minaan dabaal maan noqon waxaa dhacday saan u soconay mid Soomaaliya jiro caananiyo oo wuxuu fadhi Talyaanigu joogaa wuxuu noqdaa translate noqdaa wuu jiraa waa wariye caana wiis ma xasuustay imika marka saan u soconay taar aan wadinay ayaa waxa soo galay maadaama u soo dhawaanay maxaa la markab weyn waxa dareemay in markab weyn soo dhawaanay taarka ka dareemay moogtay iyo waxaan aragnay leydar waaweyn oo magaalo eeg anaga magaalo oo malina laakiin waa maxay wali wax u dhax jirnaa dhexda u dhax jirnaa maalmaha hadda saarana meesha kala baxayno anaguna maxaa u maleynay inaan wadana soo galnay oo Talyaaniga joogno ilaa waxa waa markabba aan xaafadaha u maleynayno markabku intuu leeyahay garanaysa u maleyn markab aad buu weyn yahay aad markab wuxuu ahaa kaasi 4 bilood ama 3 bilood soconaya Chinese inuu ahaa u maleynaaday adu wax buu ahaa markab Chinese ba u maleynaa inuu ahaa markabkii waa la arkay hal farxadii ha keento in ay doontii saata tiraado ay dalooshanto oo la yiraahdo hala anaga horeynayna war gabdhuhu ha idin ka horeeyaan hadda xageen ka arkanaa doontan sheedoon baa laga arkaa waxa inay tahay wadan waxa loo maleynaa meel galnay doonta uma maleynaba anaga horeyno idin ka hordegayna war jooga ninkii doonta nagu weey war bal suuga waxaan hortaan ogaanay markii dambe waxa dhacdayna doomay yar ka soo degaan doontii weyneed doomay yar ayna soo agstaagaan nala eeginaan dad caadi nahay oo la ogaadayna dad tahriibiyaan nahay la noqdo doontii loo soo dhaweeyo xarkan loo soo tiro la istaba ordo leeyahay ciyaalka iyo islaamaha iyo naaguhu markuu horeeyaa soo koraan horta inta kala soo korin markii seel loo waxa iska arkaysaa soo koraya nin iska qabsanaya iska arkaysaa xadhigiina loo soo tuuray oo isagu rabo inuu horeeyo marka muhiimadana waxay ahayd maadaama dadkaas qurbiskiin wax iska aaminsan dadka uur kale iyo ciyaalka iyo waxa inay faastiin moogtay marka dadka uur kale islaamaha waaweyn iyo ciyaalku ha horeeyaan baa leeyahay ha fuulaan baalkan aan idin soo tuurnay wasa garanaysa Soomaali ay nafayso intaas oo dhabiyo ku soo dhaxjiro haddana lagu qurba soo gasho faraxsan waxa iska arkaysaa islaanta inuu mid ka sii horeeyba nin aaba ka horeeyba islaantii la hafuushiida daaya waxa iska arkaysaa jaakeedadii la tuuray in naagi laga boobayo mana qof walba aad horta lama yaabayo oo wuxuu isleeyahay kulli meel xun ka timid meel fiican u gal adu waxa dhacday kadib in meeshiina la wada geeyo oo korkana la saaro oo dadka la rusheeyo balaaya lagu sameeyo kulli dadka qurbaa joogana waa la rusheeyna waxa la siinaa dharka laga bedela waxa kala siinaa waxa dana dhacayna fara la iska qaado waxa dhacaysa in kaamil iska geeyo Talyaaniga dhexdeeda haddana Talyaaniga laga dhax baxsado oo qof walba xaq qurbaa si rabo si tago sheekadaas adadu inta dambe iska maali anigu weeyaan kulli qof walba wada buu rabay inuu tago midba xilli buu kaam ka baxsaday qaar baa Jarmalka qaar baa Sweden qaar baa Mareykanka joogay imika oo ka sii baxay Yurub qaar baa jooga Talyaaniga qaar baa Austria jooga qaar baa Denmark jooga qaar baa Norway jooga marka ma dad aad caan u aba jira mana la yaqaano soo raacno imika liis adaan magacaanto sheegay aan la oranayn baba qofkan Cabdisaaq way soo raaceen mana dad salaam imika gabdhaha wiilba isku jiraan laakiin hal qof ma ka sheegna magaciisa si mana dadka qaar iska nima weydiin marka sheegayso waxaan amoore oo kale imika wiilka to ku jira amoore waa soo mana qof aan soo waa soo jabnay faantaninka laakiin dadku moog waxay mudayaan marka caan ka noqoniyo waxa isbaranay ama inaan is aqoonin ma fahamsan marka amoore kale ku jira dadkan isla soconay dad kale uguna aad ku jiraan laakiin dadka kuma kalsooni marka waxa iska oran karaan maxaa magacaaga la sheegtay waxa marka ma rabna iyaga laakiin kaas oo kale la socday marka waxa dhacday in qof walba meel si jeclaado soo imku tan jooga Austria baa qaar baa Sweden qaar baa Mareykanka jooga qaar baa meel Finland jooga Norway Denmark balaayo Jinijan qaar baa soo laabtay Afrika iska jooga oo yiri maalin mar rabo Yurubta qaar baa geeriyooday laa naxariista qaar baa jiraan soo raacnay oo Yurubta dhexda kula geeriyooday oo wax khaldan isticmaalay xilliga inay faa'iido leedahay u maleynay qof walba imka Afrika joogana mar walba dad ku taadneey taariim ma fiicna meeshaas uu kula yaaba ina wax ka qabanayso ku maleynaa moogtahay ilaa haddadan aad daawanaysid dadka qaar baa aaminsan been meeshaas meel fiican tahay oo wax ka celinaysid oo leedahay meey anaga kaliya taa raaxaysan anaga kaliya taa lacag yeelan anaga kaliya taa cunno dad bas aaminsan ama aan soo aragn waxa soo aragtay iska aaminsan dadka qaar marka waxa dhacday in qof walba wada wax barto waxa dhacday in iskool iyo waxyaabaha afkii barano afka ugu muhiimsan moogtahay meeshaan joogna Jarmal la gaali afkii baa xogaa baranay hadana qasab waxa noqotay inaan barno isdhaxgalka bulshada wax la yiraahdo isdhaxgalka bulshadu aad buu muhiim yahay
ومعناها waxaa qasab ah in aad fahmi kartid dadkan dhaqankooga aad la nooshahay Soomaaliland marka Soomaaliskana meel yar baan iga soo qaadaa intaan meel fog gaarin marka Soomaaliskana marka cuntada cuno waxaas ka agsaa qof markuu cunto cunay afka iska dhaqaajinayo cuntada afka ugu jirta aad arkaysid baba ana waa yareeyay ugu moogtaa waa yaraa marka waxyaabahaas oo kala barbaray mana ina afka isku qabayd marka cuntada cunaysid oo qofka cuntada kula cunaya dawna arkin waxa afka cunaysid iyo suuga eegtay waxaas marka adigu waxa la leeyahay isdhexgalka bulshada oo waxyaabo macad sharciga la isku siiyo moogtahay laakiin inaad isdhexgal samayso dad ajaaniba aad asxaab noqotid oo la arkay qof wax rabata inaad wax baratid inaad shaqaysatid wixii ma sameeyay